بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، xikmaddu waa baadi ka maqan qofka muuminka ah oo uu raadinayo oo uu doonayo inuu helo meel allaala meeshii uu ka helana waa uu ka qaadanayaa. waxaa maanta idiin soo jeedinaynaa 6 xikmadood oo aad iyo aad u muhiimsan, caqli iyo garasho xeel dheerna ku dhisan. xikmadda koowaad: sirtaada iyo waxyaabaha kuu qarsoon ee dadka kale kula ogeyn ha ogeysiinin. waa inay ku gooni ahaadaan nafsadaada iyo rabbigaaga oo keliya. alle subxaanahu wa tacaala ceebaha waa uu asturaa haddii uu qofka ceebihiisa faafinin. maxaa yeelay qof haddii aad siiso sir iyo ceeb kuu qarsoon, qofkaasi waxaad siisay fallaar, waxaa laga yaabaa fallaartaasi inuu kugu soo tuuro. ceebahaaga lama ogaanayo haddii ay ku gooni yihiin rabbigaaga iyo nafsadaada oo keliya. xikmadda labaad: ha ka baqin 2 shay, alrisq waalmowt, risqi la'aan iyo dhimasho, geerida. labada midna ha ka baqin. maxaa yeelay risqiga waxaa kafaalo qaaday allah tabaaraka wa tacaala. ibni aadamka keliya qaas kuma aha kafaalaqaadkaasi, balse waxa uu caamimayaa dhammaan wax walboo noola ah. alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah suuratu huud suuradda 11 aayaddeedii 6 waxa uu ku yidhi: wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin. sadaqa allahu alcadiim. sidoo kale geerida ha ka baqin. maxaa yeelay geerida waxaa ka baqa qof aan u diyaargaroobin safarkaasi uu u socdo ee ah ilaa daarta aakhiro. geerida xasuusteeda badi, u diyaargarow dhammaystiranna isu diyaari. xikmadda saddexaad: waxa aad ku dadaashaa raaligelinta waalidkaaga, sababtoo ah waa kaalinta iyo darajada labaad ee sababta u noqotay in aad dunida imaatid. raalli ahaanshaha alle waxa uu ku jiraa raalli ahaanshaha labada waalid. sidoo kale carada alle waxa ay ku jirtaa raalli ahaansho la'aanta iyo carada waalidka. xikmadda afraad: waqtiga dhibaatada iyo awqaadda kaleba waxa aad kaalmaysataa sabarka iyo salaada. waxaadna ogaataa labadani oo sabarka iyo salaada ah in ay ku culus yihiin dadka oo dhan ilaa dadka khaashiciinta ah mooye. alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah suuradda 2 suuratulbaqara aayaddeedii 45 waxa uu ku leeyahay: wastaciinuu biالصabri waالصalaat wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim waannahum ilayhi raajicuun. sidoo kale waxaad ogaataa sabarka inuu yahay guusha la sheegayo inay tahay qadar yar inaad sabartid. xikmadda shanaad: ha sheegin 2 shay, wanaagga iyo xisaanka ama samafalka aad dadka u samaysay iyo xumaanta dadka ay kugu sameeyeen. wanaaggaaga oo aad sheegto waxa uu caddayn iyo daliil u yahay in aadan alla dartiisa u samaynin oo ay kaa ahayd magacdoonnimo iyo gallad sheegasho. sidoo kale xumaanta dadka kugu samaynayaan lama sheego oo lama daahiriyo, lama muujiyo, oo waa la qariyaa. qofkii xumaan kugu sameeyana wanaag ayaa loogu beddelaa. axsin ilaa man asaa'ak. qofkii xumaan kugu sameeya wanaag ugu beddel, asaga ayaa ka waantoobi doona oo ka hari doona xumaantaasi uu kugu samaynayo. xikmadda 6aad waa xikmadda ugu dambaysa xalaqada barnaamijkeenna maanta. xikmaddani waxay leedahay: ha iloobin 2 shay. ha iloobin labo qof, ha iloobin. oo waa kuwe? alle subxaanahu wa tacaala ha iloobin, daarta aakhirana ha iloobin. xasuusnow mar waliba in allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay inaad samayso khayrka, khayraadkana aad ku dadaasho. alle subxaanahu wa tacaala xuskiisa iyo dikrigiisa badi, waxa uu kugu kaalmaynayaa in aad alle ka baqdid cabsidiisa dhabta ah. sidoo kale badi xusuusta daarta aakhiro waxay kugu riixaysaa tani in aad aakhiro isu diyaariso isdiyaarin buuxda. waxaadna ogaataa adduunyadu waa maalmo, nolosheeduna way gaaban tahay, balse maalmo kooban kadib waa laga guurayaa oo waxaa la aadayaa daartii joogtada ahayd ee aakhiro. waxaa lagu badbaadayaa biraxmatillaahi wa bifadlih iyo iimaan saxiixa iyo camal wanaagsan. waxaa lagu halaagsamaa iimaan la'aan
iyo camal xun. Alle subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in iimaan saxiixa iyo camal saalixa nugu arsaaqo, khayr oo dhanna ina siiyo, ina waafajiyo, sharta oo dhanna inuu naga badbaadiyo, innaga iyo dhammaan waalidiinteennii, culimmadeennii iyo dhammaan muslimiinta. كلمة التوحيد الله سبحانه وتعالى هنودله ذنوبتنا ودنا الله ينودافه. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك جميع الخيرات ونعوذ بك من جميع الشرور. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد ما لاح بدر التمام وفاح مسك الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.